wiilku waa 2 sano jir sidaasaan 2 sano jira marka waana aad baan uga walwalayaa uga xumahay hooyo la'aanta ku dhacday iyo aabba la'aanta haysa akrigiis gacanta uusan dad aan munaasib ahayn gacantooda uu ku jiro sida dad badan oo Jarmalka degan iyo dunida kaleba ay la socdaan 12 bisha June 2020 waxa magaalada Klagenburg ee gobolka Niedersachsen saygeedii uu ku dilay Leila Saciid oo ahayd hooyo haysata cunug 2 sano jir ah intii nii dhageystay wareysigii aan ka qaadnay qofkii ugu horeeyay ee arkay meydka gabadha waxa dad badan ay su'aalo ka keeneen xaaladda wiilka sida ay ahayd oo aan wareysiga ku xusin hase ahaatee aan xogtiisa helay ka hor wareysiga sheekana dhex martay aniga iyo goobjoogaha wuxuu ii sheegay in markii qolka ay ku jirtay gabadha meydka ah uu galay ee uu daaray nalkii ay indhihiisu qabteen meydka gabadha oo dhulka yaala gidaarka ama darbiga qolka oo dhinac kasta dhiiggeeda lagu qoray wuxuu xusuustaa in wiilka yar uu sariirta jiifay oo uu hurdayay booliska ayaa wiilka yar ka soo saaray qolka sidaasna daryeelkiisa iyo badqabkiisa ula wareegay ilaa lagu simay hay'adda carruurta iyo dhalinyarada ee Jugendamtiga si aan xog dheeraad ah u helno isla markaana aan u ogaano xaaladihii ugu dambeeyay ee wiilka yar dareenka aabaha iyo rajada jirta waxaan qadka telefoonka ee Qaahira kula xiriiray aabe Axmed Maxamed Cali Xasan waxaana marka hore weydiiyay sida warka geerida wiilkiisa hooyadiis ay ku soo gaartay wuxuuna ku jawaabay wallahi walaalkaygu wuxuu igu soo gaaray subaxii 21 bisha xilli abaar 12 duhurnimo ah ayaa waxa ay soo wacday maama halkaan ka tagtay oo Qaahire ka tagtay oo meesha Jarmalka joogta ay soo wacday markii soo wacday arrinka ii sheegtay waxay igu tiri wiilkaaga hooyadiis Allah u naxariisto way dhimatay nin qabay baa dilay sidaas bay igu tiri markaas dareenkaagu sidoo ahaa wallahi dareenkayga hadda waa dareemi kartaa kulay geeridu waa xanuun aad u xanuun badan tahay geeridu waa dareemi kartaa qofta loo soo sheegay asagoo nool aad ogeydee lagu yiri haddana wuu dhintay waa arrin qof kasta oo muslim oo geeridu waa xaq laakiin haddana xanuun buu dareemaya haddana qof mas'uul ah oo awlaadaadii hayay haddana waa xanuun kale oo ka sii weyn intaas marka goorma kugu dambeysay Leila iyo wiilkaaga 3 wiil ka hor bay mar ila hadashay waxayna igu tiri wiilkii musawiradiisii waxbay ii soo dirtay wiilkii ka waran baan ku yiri waa fiican yahay waa nabad qabaa bay tiri sidaas bay igu tiri 3 wiil ka hor intaysan dhacdadu dhicin aragti ahaan goorma kugu dambeysay aragti ahaan aniga waxa igu dambeysay sanadkii hore waa igu dambeysay bilowgii sanadkii hore marka maxay kugu tiri markii ugu dambeysay markay soo bixaysay rajadeeda iyo nolosha cusub ay wajahayso sidee u muujisay waxay ii sheegtay in ay baxayso ay ii sheegtay aniguna markaa waxaan ku yiri ilaahay idin nabadgeeyo meeshii qeyrku idinkugu jiro waa mahadsan tahay haddii aan arrinta wiilka wax kaa weydiiyo markii arrinta naxdinta le kusoo gaartay sawir noocee ah baad qaadatay ama kuu sawirmay wallahi waxa ii sawirmay waa garan kartaa cunug yar oo hooyadiis meesha ka baxday aabana uusan la joogin dhibaatada ay leedahay qof kasta dareemi kara oo aabba ah intii qof kasta oo aabba ah dhibaato uu dareemayaana dareemaya wiilku waa imsan jir wiilku waa 2 sano jir sidaasaan 2 sano jira marka waana aad baan uga walwalayaa uga xumahay hooyo la'aanta ku dhacday iyo aabba la'aanta haysa akrigiis gacanta uusan dad aan munaasib ahayn gacantooda uu ku jiro waxaad iga warantaa waan la socdaa dabcan dadaalada socda iyo arrinta duugta gabadha iyo wiilka arrinta dadaalka loogu jiro sidii dib loogu soo celin lahaa haddii aad dadka la wadaagto tan iyo markii warkan uu soo baxay maxaa kuu hirgalay oo arrinta wiilka ku saabsan wallahi dadaalo badan baa la sameeyey jazakallahu khayran
waa mahadsan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed kulley dabcan sidaan dareemahayo arrintu uma aysan kala harin waa loo wada istaagay yar iyo weyn saqiir iyo kabiir waa loo istaagay arrintan si aan ugu mahad celiyaan hadda ma garanayo qof kulley uma tilmaami karo intii gacanta ka geysatay aaska gabadha iyo hawsha arrinta wiilka waxaan leeyahay waa aad iyo aad baad u mahadsantihiin laakiin waan dareemahayaa in juhdi badan iyo aan waxba lala harin dadaal lala haray aysan jirin ma jirta adiga cid kula soo xiriirtay wallahi aniga dad badan oo ila soo xiriiray way jiraan oo si qaar ii tacsiinayay qaar aad uga murugeysnaa arrinta qaar talooyin ii siinayay waxyaabo badan baa jira marka insha Allahuna waxaan rajaynayaa wax walba inay khayr noqdaan waa mahadsan tahay anagana khayr baan ku rajaynaynaa waana kaaga tacsiininaa dhibta dhacday aad buu u mahadsan yahay aabe axmed maxamed cali xasan oo wiilkiisa hooyadiis 21 bishan sababsaday gacanta ninkeedii ay 2 bilood oo kaliya wada joogeen allah u naxariistay marxumed leyle saciid waxaa qawraha Friedhof Osterholz ee magaalada Bremen lagu aasayaa maalinta Jimcaha ee 26 bisha Juun 2020 haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe waad ku mahadsan tahay dareenkaaga tan iyo kulantida dambe nabadgelyo